maanta oo kale في مثل هذا اليوم كن سقال بقول يا أفريا سقاشن كي وحي هيد مالنتي وهرجيسة كقرحي دجال كي سكيو لبا تنجورة ديوي إن ساكا سقوسي كلا أيها هذا مر لبا هرجيسة كقرحي وحكي لدوانون sidoo uga qarxay xaaladda barka aan murtiyeeyo maanta waxay maraysaa saahid qaban allah yarxame muslimku ma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyneenin dharkayn mudmuday hoosna maray muruxin sha'aleeye muggii weelma dhaafee allow mooskayaan jabinin caqliyadii dumarka iyo ciyaalku halkay maanta Somaliland marinayaan waxa weeye meel aad u halisa haddana waan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay shirqoolkii wajigiisii hore shirqoollo badan oo hore oo loo dhigayay doorashada waynu ka soo gudbinay kii kalena wajigiisii hore waynu ka soo gudbinay maanta waxa Somaliland ka dhacay oo dhan ee ay xukuumadda dadka magaceeda isticmaalaya sameeyayna waa dagaal ku wajahan doorashada wax kale ma aha iyo in commissionkii la ansixiyo oo uu hawshiisa qabsado dhiig baa loo daadinaya ilaa haddana waan la sheegayaa inay jiraan burco dad saakaba ku dhintay warkaasi hadduna soo gaadhay ninkii damiir qabta lahaa ama diini qabanaysa ee iimaan lahaa ama dadnimo qabanaysa dib buu isu raajiciyey xataa hadduu damac lahaa waxaan u doortay inaanu meeshaa tegin 17 ilaa 20 qof ayaa meesha tagtay waa intii dhimatay intaas markaa laakiin ilaahay ha soo hadeeyay iyaga laftooda lagama qoostee waxaan leeyahay ilaahay hadii soo habidey la yiraahdo ku xigeenka waa baashi oo iska awr kiraalac ah halkan madaxtooyada looga soo sheegayo dabeedna taale soo yiri sabaynayo oo aan dalayadan ka lahayn oo aan leeyahay qoladii khaatuma naga qabta ayaa gudoomiyihii laga dhigayay baa la yiri anigu in laga dhigo waan golay laakiin sifaha looga dhigayaan diidanahay waxa weey saaka cid kale iska daayo waxa yaabay buur madow boqor buur madow baan oranaya saaka boqorkii baa yaabay cid kale iska daayo oo yiri war waxaan idoo madliqi kari maayo qabyaalada noocan hina shaqayn mayso markay xaaladdu qasanto halkii ay taqaanay waa kii quraha ee aynu konton kun ee qof inooga dhinteen ee ahaa dariska qura ee aynu ka baranay xilligiis yaad baray waxaan u ahaa dhibaatooyinka qaranka inaan xadhig iyo xabadi xal u noqon masiibada Somaliland ku habsatayna waxa koow ka ah xukuumad aan xal kale ba aqoon xalka qura ee ay taqaanaana uu yahay xadhig iyo xabad bal halka ay geeyeen baynu taana eegi doonaa sharci wadanka lagu dhaqo waxa ugu dambeeyay dhaartii dastuuriga ahayd ee Axmed Siiraayo ku noqday madaxweynaha ee loo dhaariyay xilka halka laga bilaabo talaabadii koobaad waxay ahayd 70 shaqaale oo dhiijiyadii iyo isugu jira in xilka laga tuuro jaraa'idka lagu soo qoro iyadoon xeerka shaqaalaha dawladda la marin waa talaabadii koobaad ilaa taa maanta socota iyo intii ka dhaxaysayna wax sharci ah oo habay yaraatay xukuumaddaas ay ku dhaqaaqday ma jiro waxa wax lagu wadaa waa qof waa jacaylkooda iyo nacaybkooda ayaa sharci ah waana u sheegay hore oo waxa la leeyahay waxaanu anagu doonaa waa sharci xataa hadii uu sharci darro yahay waxaanu anagu diidnaa waa sharci darro xataa hadii uu sharci yahay dacid la hadla garan maayo anigu madaxweynaha waxba oran maayo waxa suuragal ah berrito inay soo fariisiso dumar oo ay tiraahdo u jawaaba dadka habeen dhaweyd buu arkaysaa 20 dumar oo wasaaradda tacliinta ah oo macallimiin u badan
oo la yidhi ordoo kaalayo taga tiifiyadoo caaya ardaydii halkaasaa la marinaya macallimiintii baa la isticmaalaya oo la leeyahay kaalayo tiifiyada taga oo aan kulmiyada ahayn dadka ka caaya waxaasoo dhan cidda samaynaysana anigu labada indhood baan ku dhufan karaa waayo inaysan weyne ninkii la odhan jiray waxaa la yidhi nin baa sodohdii dhirbaaxay gartaasi gar uguba bay noqotay oo cid qaada la waayey waxaa la yidhi ninkii inaysan weyne la odhan jirayoo axmed siinaanyaheen madaxweynehayno ah xagga hooye awow uga ah ayaa loo geeyey markii dambe dabeed gartii sidaa u adkaatay ee muddada socotay wuxuu ku soo gebagabeeyey sodohda halka inanka gacanteedu ka soo gaadho maxaa taagay xaal mooye gartii waxay noqotay waa lagu waayey qarankan dumar lagu dayn maayo carruur lagu dayn maayo ku caqli xunoo kale lagu dayn maayo wixii edabdarradooda joojin waaya waa loo jawaabaya waana la odhanaya waxaannu u soo beegsannay iyo intaannu u soo marnay iyo intaannu maalin ka mida noloshayda oo dagaalkii buraha maalin qura oo ka mida noloshayda intaan halgan u soo maray taa anigu dumar iyo u dayn maayo uga dambayn maayo